بسم الله الرحمن الرحيم saaka oo ay bishu tahay 24kii bishii labaad 2020ka waxa dhamaan sida madaxda wasaaraddu ay sheegeen ay daah fureen saaka dalka oo dhan ka bilaabmay dufcadii labaad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa imtixaankii saaka u fadhiistay runtii barnaamijkaasi waa barnaamij najaxay weeye waa barnaamij bogaadintiisa iyo waxa weeyaan ikhtiraacisa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland faa'iidooyin badan ayaa barnaamijkaasi laga helay midda koowaad ee dhalinyaradii wadanka ee jaamacadaha ka soo baxay ee waqtiyadii hore iyagoo lagu soo tubcay jaamacadaha ka baxay tahriibka door bidi jiray maanta waxay aamineen wadankoodii aamineen sidoo kale barnaamijkaasi faa'iidooyin kale u yeeshay waxa weeyaan isdhexgal xagga bulshada ah marka isdhexgal badan oo xagga bulshada ah ayuu barnaamijkaasi isaguna sidoo kale maxaan ku dhaayay inuu sameeyay waaxihii iyo wasaaradihii maxaan ku dhaayay qarankana dhalinyarta aqoonta waxa weeyaan faa'iidooyin badan bay iyagana ay soo galiyeen oo sayniska waxbarashada oo kale dugsiyadii inta badan dibadda ku yaalay miyada inta badan aan macallimiin maxaan ku dhaayay tababarnaa ku yaraayeen ama macallimiinta gunaysanaba ay ku yaraayeen runtii xoojin weyn ayay maxaan ku dhaayay ayay arintaasina ay keentay oo wax weyn bay ka tareen marka barnaamijkaasi waxaan sidoo kale ku bogaadinaynaa agaasimaha shaqo qaran agaasimaha guud shaqo qaran oo runtii xafiis cusub haddana waxa weeyaan dardarteedii hawsheeda la yimiday meel fiican na gaarsiiyey iyo sidoo kale xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sida looga bartay waqtiyada imtixaanaadka shahaadiga oo kale sida cadaaladda uu dhaco ay imtixaankana saas oo kale u dhacaa Soomaaliland oo dhan hal waqti ayuu ka wada bilaabmaa marka intaas oo dhan bogaadinaynaa maanta waxaynu joognaa markii labaad ama sanadkii labaad oo aynu furayno barnaamijka shaqo qaran oo laba jirsaday ilaahay baa nagu beegay caafimaadka iyo cimriga uu ina siiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin barnaamijka shaqo qaran oo bilaabay hindisaheedana uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sanadkii labaad maanta aynu halkan u taaganahay waa barnaamij la mahadiyey oo qiimihiisa leh oo kulley aynu aragnay inagu wasaaradda waxbarasho ahaan inaga oo ka dhignay macallimiin shaqadii ugu horeysay ee ay qabteenna ay ahayd ilaaladii imtixaanka waxaynu arkaynaa inay muhiimad iyo wadaniyad iyo wax fiican ay ku soo kordhiyeen aqoontii iyo kartidii dalka oo dhan guud ahaan ardayda shaqo qaran waan hambalyeynaa gaar ahaanna ardayda gobolka Maroodijeex si gaar ah baan u hambalyeynaa waxay ku galayaan 5 goobood Sheekh Madar Sheekh Bashiir Maxamed Axmed Cali Gacan Libaax iyo 6 ka joogan 5 goobood bay ku galayaan kulley ardayda khayr baan u rajaynayaa insha Allah waxaan u rajaynayaa inay sidii ardaydii hore ay noqon doonaan arday wadaniyiina oo ka qayb gali doona dhammaan qaybaha dawladdu ay leedahay barnaamijkani wuxuu hirgeliyay ama uu daaha ka furay in qofka dhalinyarta ahi uu ku shaqo tagi karo qalinkiisa iyadoo aan oday iyo inaadeer iyo mas'uul kale midna aan wadin isagoo ku helay aqoontiisa ugu jirta maskaxdiisa oo bartay iyo qalinkiisa waxyaabaha muhiimadda uu keenay weeyaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan insha Allah aan rajaynayaa inaynu sanadada dambena ilaahay uu inagu simi doono insha Allah dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta oo taariikhdu tahay 24 bishii February 2020 waxaa dalka guud ahaan looga fadhiistay imtixaankii loogu tartamayay barnaamijka shaqo qaran imtixaankaas gabi ahaanba waxa hogaaminaysa wasaaradda waxbarashada hadday noqoto xafiiska imtixaanaadka iyo hadday noqoto isuduwayaasha ama gudoomiyaasha waxbarashada ee gobolada howlwadeenada wasaaradda waxbarashada kala duwan kormeerayaasha dhammaantood wasaaradda waxbarashadana iyo xafiiska imtixaanaadkuna waa kuwii qaranka awalba imtixaanka qaadi jiray looga bartay imtixaan daacada oo aan qof la dhaafin ummadoo dhamina ku kalsoon tahay waxaan u rajaynaynaa dhalinyarada maanta ka qayb galaysa imtixaanka in intii ilaahay qoray ku guuleystaan intii kalena kalsoonida sida awalba imtixaanka shahaadiga loo qaadi jiray kalsoonida ay ku kalsoonaadaan qalinkooda waa arrin aad u muhiim ah waa rajo u abuurantay dhalinyarada Soomaaliland in qof kasta uu wax ku doono ama ku helo qalinkiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisa oo aan u baahan cid gacan qabata oo marti cid u noqonin waa arrin guula waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha
oo barnaamijkan fikirkiisii uu ahaa oo hirgeliyey. waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay hirgelintiisa oo hay-adaha dowladda kala duwana ama wasaaradda waxbarashada, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda qoyska, wasaaradda caafimaadka, dhammaan wasaaradaha waa laga wada qayb qaatay. aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan rajaynaynaa in sanadaha kasii dambeeya inuu kasii wanaagsanaado. tan waa dafcaddii labaad, kuwo kalena way jiri doonaan. maalin baana waxbaa kusoo kordhi doonaa haddii ilaahay nagu simo aynu nool nahay. maalin baa horumarin iyo wax badan baa kusii kordhi doona. dhallinyaraduna inay bartaan wadaniyadda iyo xaqa waddanku leeyahay iyo xuquuqda iyagu ay leeyihiinba inay bartaan waajibaadka iyo xuquuqda, dalkooda u shaqeeyaan, ka xoroobaan ardayada ay ku xidhan yihiin. waxaasoo dhammi waa faa'iidooyinka ka dhalan doona. ilaahay ha inoo sakhiro, ilaahay ha inoo fududeeyo hawsha badan ee nagu soo socota. aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. imtixaanku koley maanta shaqo qaran si rasmiya waxaa uga furmay dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan. isku hal saacad buu furmay. waxaa mahaddeeda le runtii xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada runtii qabanqaabadaas iyo isku dubaridkaas oo dhan sameeyey, iyo xafiiska barnaamijka shaqo qaran oo hogaaminaya agaasimaha shaqo qaran. waxaan runtii jecelna halkan uga mahadnaqnay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo barnaamijkan fikirkiisa iyo hal-abuurkiisa iyo hirgelintiisaba lahaa. barnaamijkan runtii guuleystay, isla markaana noqday mid midho dhalay. dhammaanna markaa bulshada reer somalilan gaar ahaan dhalinyaradu ay u riyaaqeen, isla markaana fursad u siiyey inay qarankooda u adeegaan una shaqeeyaan. aad iyo aad baan madaxweynaha u hambalyaynayna. dhalinyaradana waxaan kula dardaarmaynaa inay barnaamijkan iyo fursaddan runtii ka faa'iideystaan. bismi illaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. barnaamijkan shaqo qaran ee maanta ka bilaabmay jamhuuriyadda somalilan dhammaanteed dacal ilaa dacal gobol walba waa kii labaad. kii hore haddaan ka hadlo aad baa loo mahadiyey. waxa weeyaan iskuulla markii hore macallin keliya haystay yaa la geeyey. tacliintii iskuullada weliba kuwii ku yaalla meelaha dibadda amba koonayaasha amba miyiga tacliintoodaas sanadkaa maanta kor baa u soo kacday. kuwaanna way kusii dari doonaan oo waxa laga yaabaa iskuullada magaalooyinka ku yaalla inay soo gaadhsiiyaanba. kolkaa waxa weeyaan waa shaqo la mahadiyey. madaxweynuhu kaambeynkii markuu kaambeynka ku jiray buu ballan qaaday uuna fuliyey. kolkaa qofka ballantiisa fuliya waa qof go'aan leh. kolkaa ilaahay khayr madaxweynaha siiyo. shaqada qarankiina ilaahay noo dhibeereeyay ardaydaynaba. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.